in aan ku soo dhaweeyo isla markaana aan wareysiga guda galno. waan dhawahay walaashay Zamzam adiga iyo studio-haaga Guul Show aad baan u dhawahay. magacaygana waa Cabdiraxiim Warsame Diiriye, ka tirsan cilmi baarayaasha sare ee hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed, la taliya sare oo muddo 8 sano ah ka shaqaynayay hay'addaas. macluumaad badan oo waafiya iyo xoogaalnimo arrimaha badahana haya. soo dhawo walaal, waana mahadsantahay soo dhaweyntaada iyo wareysigaaga. aad baad u mahadsan tahay. runtii waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga iyo weliba fursadda qaaliga ee aad noo ogolaatay in aad markaasi nala wadaagto macluumaad aad muhiima. su-aasha koowaad ayaa waxaan doonayaa marka inaan ka dhigto, Soomaaliya ma leedahay sharciyada badda qaabilsan sida dalalka kale ee caalamka oo kale? Soomaaliya way leedahay sida dunida kaleba ay u leedahay, ama dal kasta uu xeerar kala duwan oo isku hago oo dhan walba leh uu u leeyahay ayay Soomaaliyan u leedahay. muddadii dowladnimada laga soo bilaabay 60kii iyo ka horba intii lagu jiray dowladdii daakhiliyada, Soomaaliya waxay yeelatay muddadaas ilaa maanta 4 xeer oo midba waqti gooniya soo baxay, wax ka beddelna lagu sameeyey, oo midba midka kale uu meesha ka saaray, oo ama wax ka beddel ama amendment lagu sameynayay. Soomaaliya sharcigii ugu horreeyey ama xeerkii ugu horreeyey waxay yeelatay 1959kii ama 21kii February. sharci lambar 1 ayaa la yiraahdaa, oo xilligaas uu ra'iisul wasaare ahaa Cabdilaahi Ciise, waana daakhiliyadii dowladdii daakhiliyada ahayd UN-ka iyo isla maamulayeen oo ahaayay Soomaaliya. xeerkaas waa xeerkii ugu horreeyey, wuxuuna yani sharcigaas waxaa soo diyaariyey oo uu hoos tegayey muxuu ahaayey wasaaradda isgaarsiinta iyo gaadiidka ayuu hoos tegayey. marka sharcigii waxbaa laga bedelay, waxaa lasoo saaray xeer lambar 7 1966 oo xilligaas xukuumaddii aadan cabdulle cusmaan uu hogaaminayey, ra'iisul wasaarena uu ku ahaa muxuu ahaayey Cabdisaaq Xaaji Xuseen. sharcigaas iyo kan hore waxyaalo ay ku kala duwanaayeen waa xagga muxuu ahaay cabirka badda ayay ku kala duwanaayeen, oo kii hore wuxuu ahaa 3 nautical meel ayuu ahaa territorialka ama biyaha badda Soomaaliya ay leedahay, maadaama dunidu markaas aysan ka jirin xeer la isku waafaqsan yahay oo caalamiya oo heshiis caalami uusan dhicin, oo muran dheer uu markaa ka jiray iyo dood aan natiijadeeda la gaarin. Cabdiraxiim, waxaan jecelahay intaynan bal halkaa inoogu qabo, inta badan waxa ay dadku maqlaan territorial water iyo maaragtay continental shelves iyo maaragtay exclusive economic zone oo loo soo gaabiyo EEZ. maadaama dadku aanay wada garanaynin erayadan micnahooda, waxaan jeclaan lahaa maadaama aad ka dhawaajisayba ma inoo sharixi kartaa 3dan erey ee kala duwan ee u baahan dadka in loo af Soomaaliyeeyo maadaama dadku aanay ku wada hadlin ama qaarkoodba aanay aqoon u lahayn? waan sheegi doonaa. xeerarkii koowaad waan sheegay oo xeer lambar 1 buu ahaa 59kii. xeer lambar muxuu ahaa xeerkii ku xigay waxaa lasoo saaray 1966 oo waxaa loo jiray xeer lambar 7. xeerkii saddexaad waxaa soo saartay dowladdii militariga ahayd oo wuxuu soo baxay waa xeer lambar 37 la yiraahdaa 1972 oo xeerarkii labadii xeer hore wuxuu kaga duwanaa, midna 6 nautical meel buu ahaa
midna 3 nautical mile buu ahaa kan saddexaad 200 oo nautical mile ayuu ka dhigay oo ahay badda Soomaaliya oo territorial waterka oo xeerkaasi 20 qodob ayuu ka koobnaa ama 20 article xeerkii afaraad wuxuu soo baxay 1989kii waxaa la yiraahdaa xeer lambar 5 dhaliya dadku way yaqaaniin waa xeerka hadda aan haysano oo aan ku dhaqanno xeer ka dambeeyay oo badaha Soomaaliyeed lama sameyn marka xeerkan kii ka horeeyay wuxuu kaga duwan yahay dawladda kacaanka ay soo saartay 72 kanna ay mataqaana 89 la soo saaray waxay ku kala duwan yihiin kan 89 wuxuu waafaqsan yahay xeerka badaha adduunka ee UNCLOS oo 1982 aan soo saxiixnay qaybna aan ka nahay ayaa la waafajiyay markii la soo saxiixay kadib dawladda Soomaaliya dimuqraadiga Soomaaliya waxay soo saartay waxay magacowday guddi 8 ah oo khubaro ah oo ugu sareeyo General Maxamuud Geelle Yuusuf oo wasaaradda markaas dekedaha joogay ayaa hogaaminayay iyo xeeraliyaha guud ee qaranka kadib waxaa la diyaariyay muddo 6 sano ah xeerka hadda aan ku dhaqanno oo laga diiwaan geliyay UN-ka haddii su'aashaada aan ku laabto maxay yihiin oo ay territorial water oo ay contiguous zone iyo exclusive economic zone iyo continental shelf territorial waterka waxaa la yiraahdaa badda sideedaba xeebta laga bilaabaa oo asaaska marka la cabirayo oo waxaa laga bilaabaa marka biyaha ay soo laabtaan oo biyaha ay laabtaan ama caariyaan oo biyuhu ay laabato marka habeenkii biyuhu way xeebta yimaadaan waa kuwan biyaha soo caariya markii dib u laabato xeebta oo biyuhu ay laabtaan xariiqda halkaas cabirka laga bilaabo markii xeebta biyaha ay laabtaan oo biyuhu ay ka noqdaan ayaa xariiqda asaasiga waxa la yiraahdo halkaas laga cabiraa ama baseline waxa lagu yiraahdo luqadda qalaad halkaas marka waxa ka bilowda waxa la yiraahdo territorial water intaysan bilaamin waxaa jira biyo territorial waterka intaan baseline-ka iyo u dhaxeeya muxuu ahaayay xeebta u dhaxeeyo la yiraahdo internal water ama biyaha gudaha la yiraahdo biyahaas waxaa sameeya dekado kale hadda dekada Muqdisho ama dekada Kismaayo ama Berbera ama Boosaaso biyaha dekada la sameeyay oo dekada dhismaheeda biyaha ka sokeeya dhismaheeda meeshuu gaarsan yahay biyaha ka sokeeya biyahaasi laguma xisaabinayo territorial water internal water baa lagu xisaabinaya waa biyaha gudaha oo waxay la mid yihiin bariga la mid yihiin oo bariga raacsan yihiin markii la dhameeyo oo biyahaas xariiqda asaasiga dekadaha kor bay ka maraysaa marka xariiqdaas asaasiga markii kor ka marto halkaas laga bilaabaya halkaas la yiraahdaa territorial water waxayna soconaysaa ilaa 12 nautical mile halkii nautical mile wuxuu dhigmaa 1.8 ama 1.85 kilomitir weey baa lagu dhufanaya marka 12kii wuxuu noqonayaa 24 kilomitir ayuu noqonayaa markii la soo dhaweeyay waxa markaa ku xiga waxa la yiraahdo contiguous zone contiguous zone waxa weeyaan waa biyaha xigaya la yiraahdaa biyaha internal waterka waa 12 isaga biyahaas iyo biyihii territorial waterka 24 bay isku yihiin waa isku xuquuq dawladda Soomaaliya ayaa mataqaana canshuurteeda iyo xuquuqdeeda iyo waajibaadka ka saaran iyo qofka soo gala muxuu ahay controls 24ka kadib ayaa waxa bilaabmaya wax la yiraahdo muxuu ahay exclusive economic zone wax la yiraahdo oo EEZ yiraahdo oo 200 ah marka 200 la leeyahay waxa laga soo bilaabayaa from baseline ayaa laga soo bilaabayaa 200 ba halkaas yani ilaa lagu geenayo markaas waxa ku xiga markii 200 la dhameeyo wax la yiraahdo marka 200 waa bad furan hawadeeda
maritaanka doonyaha ay marayaan ganacsiga intaba caalamku waa mari karaa dowladuhu way mari karaan cid walba way mari kartaa muxuu ahay laakiin dowladda Soomaaliya waxay leedahay kheyraadka ku jira noole iyo manoolaba iyadaas ka cilmi baaris hadii laga sameynayo dowladda Soomaaliya ayaa cilmi baarista sameynaysa iyadaana ogaanaysa cidda sameynaysana iyadaa u fasaxaysa oo permissionka iyo ogolaanshaha laga qaadan laakiin wixii nabadgeliyo iyo maristeeda iyo wixii iyadaas kale waxa iska leh muxuu ahay caalamku u furan yahay waa free oo ahay hadii diyaarado marayaan iyo hadii maraakiibtu marayaan iyo hadii gujisku marayo intaba laakiin ka faa'iideysigeeda kheyraadkeeda nool iyo kana nooleenba waxa iska leh dowladda Soomaaliya iyo controlkeeda xag amni hadii cid wasakhaynayso oo wasakh ku shubayso intaba waxa yani ilaalinaysa dowladda xeebeedka markaas dowladda Soomaaliya aan dhigay si ay dadku u fahmaan dowladda xeebta iska leh macnaha adduunka dhan waa ka simeeyeen xeerkan waa xeer caalami maadaama dowladda xeebeedka ayaa inta badan la yiraahdaa kelmaddaas loo adeegsadaa kadib waxaa ku xiga marka 200 la dhameeyo waxa la yiraahdo continental shelfiga ama qalfoof qaaradeedka waxa la yiraahdo qalfoof qaaradeedku waa 150 nautical mile uu ka yaraan karaa waxay ku xiran tahay dal kasta inta baaxad uu leeyahay ama deegaankiisa uu leeyahay oo uu space heli karo ayay ku xiran hadda anaga 150 nautical mile meelaha qaybtood uu ka soo yaraanaya meelaha hadda xamar iyo ku beegan waxa weeyaan 150 waa ka yar yahay cabirka wax yar buu ka yar yahay meelaha qaybtood waa dhameystirmaya hadda gobolka bari oo kale xaafuun iyo meelaha ku beegan hoobiyo iyo dhulkaas 150 uu dhameystirmaya laakiin meelaha qaybtood uu soo yaraanaya waxa keenaya cabirka iyo meelaha aad gaaraysid ayay ku xiran tahay iyo waajahada markaas aad u jirtid dalalka kale ayay ku xiran marka 350 nautical mile ayaa loo ogol yahay dalalka xeebta iska leh oo sida uu dhigayo oo ahay xeerka caalamiga ee adduunka saasayna u qaybsantaa aad baad runtii u mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiiyo khilaafka badda Soomaaliya iyo Kenya heerar ayuu soo maray macluumaad marka ma naga siin kartaa waa sax waa khilaafka maanta yani cid walba ogsoon tahay oo xuduud badeedka nagala dhaxeeyo dowladda Kenya wuxuu soo maray heerar kala duwan dunidana saana la socono khilaafka oo badaha aad buu ugu badan yahay muddadan yani qarnigan hadda aan ku jirno sababta jirtana waxay tahay markii xeerka caalamiga ee 1982 la soo ansixiyay oo la soo saxiixay dowladuhu ay qayb ka noqdeen waa la dhaqan geliyay waxa la dhaqan geliyay 1994 ayuu dhaqangalka kadib waxaa la bilaabay dowladuhu markay dhaqan geliyeen dowlad kasta waxay soo gudbistay cabirkeeda badaha 200 nautical mile ayay soo gudbisteen iyo khariidadeeda iyo maapkeeda dowladdu iskeed soo gudbisay marka xeerkaas wuxuu dhigayaa qodobkiisa ama article-kiisa 76 wuxuu sheegayaa in la dhiso commission la yiraahdo commissionka qalfoof qaaradeedka oo qaabilsan arrimaha continental shelfiga si loo ziyaadiyo dowladahana ka siinaya recommendation ama tawsiyaad wax la yiraahdo ka siin commissionkaasi waxaa la sameeyay 1997 baa la aasaasay markii ugu horeysay kadib waxaa la sameeyay wax la yiraahdo lifaaq ayaa la ansixiyay sidoo xeerka weynaha uu sheegayo 76 faqradiisa 8 in la sameeyo xeer muxuu ahaayay hoosaad guddigaas lagu dhaqayo xeer hoosaadkaas marka wuxuu sheegayaa dowlad kasta inay soo gudbiso muddo 10 sano ah continental shelfigeeda 150ka
nautical meel oo ay ku kordhinayso 200 ee nautical meel ee hore loo soo marka anaga dawladda Soomaaliya way gudbisay dawladda kacaanka ahayd way gudbisay balse maapkii kumaysan darin iyadoo aan maapkii iyo sawiradii ku darin oo aan arrintaas cilmi baaris lagu sameyn ayay dawladda meesha ka baxday kadib waxaa dhacday in muxuu ahaayey xilligii 97diina aysan noo jirin dawladda qaybtood way gudbiyeen dawladda Ruushka ugu horeysay 2001 way gudbisay dawladaha way ku wada xigeen guddigaas marka wuxuu awood u leeyahay ama shaqadiisu ay tahay in dawladaha uu mataqaan xasuusiyo u sheego yiraahdo haddaad content shelfka soo gudbin weydo muxuu ahaayey waad waayeysaa content shelfiga ama 150 nautical meel ama waxaa lagula tacaamuli doonaa qaabka marka laga bilaabo 1999 ilaa 2009 baa la qabtay bishii May 13 ayuu ku ekaa deadline-ka lagu soo gudbinayo content shelfiga ama qalfoof qaaradeed kadib annaga iyo dawladda Kenya isla xeerkaas ama lifaaqa ku lifaaqan xeerka caalamiga UNCLOS-ka ku lifaaqan wuxuu sheegayaa xeerka qodobkiisa 3aad wuxuu sheegayaa ama faqradiisa 3aad wuxuu sheegaysaa in dawladaha yani dariska ah ama duudooda badeed isa saaran tahay ama iska hor imanayso inay heshiis ka gaaraan oo ahaayay intaysan content shelfka soo guddiguna ma sameynayo dawladahaas oo kale uma sameynayo xuduudii isagu xaq uma laha inuu isaga u sameeyo laakiin iyaga ayaa ku heshiinaya si mid walba iskiis u cabirto content shelfigiisa ama qalfoof qaaradeedkiisa 150 ka nautical meel wixii 200 ka sii shisheey dawladda Soomaaliya markay dawladda Kenya marka saasay iyagana u diyaar garoobeen annaga UN-kana loo soo mariyay ninkii qaramada midoob markaa u joogay Axmed Wilde Cabdallah ayaa la soo mariyay isaga waraaqaha keenay dawladda Soomaaliya isaga kula taliyay soo guddigaas fariintoodii wada oo leeyahay waqtigan waa idinka dhicin rabaa bil baa idin dhiman waa inaad si dhaqso u gudbisaan content shelfigiina aadna muxuu ahaayey dawladda jaarkiina ama arrintan aad kala heshiisaan marka Kenya iyo Soomaaliya saasay isugu xirnaayeen marka content shelfigooda kadib waxay ku heshiiyeen in midka kale uusan dhibaato u arag oo uusan diidma ka samayn oo si iskiisa u gudbisto muxuu ahaayey cabirkaas content shelf horta halkaas ayuu ka soo bilowday muxuu ahaayey in badda Soomaaliya markaas la dhiibo oo la gudbiyo content shelfigeena guddigaasna loo diro lagana muxuu ahaayey diiwaan geliyo muxuu ahaayey commissionkaas qaabilsan shaqadaas laga diiwaan geliyo markay intaa dhacday Kenyana way gudbisatay April baanu heshiis kala seexnay 7deedii kadibna annaga waxaanu dirsanay June ayaanu dirnay iyagana way finkay waxaan u maleynayaa hadaan khaldanayn bishii July ayay direen iyagana content shelfigoodii marka halkaas ayaa bahashu horta ay ka soo bilaabatay sababaha content shelfiga loogu doodayna dawlado badan oo saas yani u gudbiyay ayaa murankoodii maxkamadda maray Nigeria Cameroon muxuu ahaayey Costa Rica iyo Nicaragua Philippines iyo China wadamadaas oo dhan murankooda content shelfiga ahaa iyo gudbintii in walba xuduudiisii ama cabirkii content shelfiga 150 nautical meel markuu gudbiyay ayaa doodaas ay timi in la kala saaro oo maxkamadda ay kala saarto waa dariiq la mari karo waxa kaloo la mari karaa in labada dawladood iyagu ay ka heshiiyaan oo yiraahdaan meesha aan kala qaybsan xuduudda ay kala xadiistaan iyo in dawlad saddexaad iyagu ay wakiishaan intaba uu ogol yahay xeerka uu ogol yahay marka hadba sida ay noqoto ayaa loola tacaamulaa haddii
labada dowlad ay u heshiinayaan sida ay u heshiiyeenba Tanzania iyo Kenya ay u heshiiyeen 2009kii ay u kala seexdeen ay hadda baddi heshiis ugu yihiin xuduud ay samaysteen oo iyagu saa ugu heshiiyeen maxkamad islama aadin annaga iyo Kenyana dee maxkamadan isla aamin heshiiskii markii la galay kadib waxaa lagu heshiiyey in kulamo kale ay dhacaan kulamadii iyo wixii adigu Kenya mataqaanaa beeldareysay oo iyadaa mataqaanaa sahlatay iyadoo markaa u arkaysa Soomaaliya inay duruuf aysan hadda ku xisaabtami karin ay ku jirto sidaasayna dowladda Soomaaliya ay go'aan ku qaadatay inay maxkamadda ay ku dhiirato inay geyso marka khilaafku halkaas ka soo bilowday haddana waa ka ilaa maxkamaddii yaalla oo maxkamaddii maanta go'aanka laga sugay is-afgaradkii marka MOU ee u dhexeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ma laga baaqsan karin wataan soo sheegayoo is-afgaradku ma ahayn is-afgarad xuduud lagu jeexayo ama xuduud lagu kala samaysanayo ma ahayn wuxuu ahaa is-afgarad ciwaankiisu yahay wuxuu waa 3 page yani 2 page iyo page oo saxiixa uu ku yaalo in labada dowladood ay midda kale aysan dhibaato iyo ka hor istaag aysan sameyn in continental shelfiga si iskeeda oo individual ay u gudbisato intaas horta nuxurkiisu ahaa oo ah continental shelfiga ay si u gudbisato iskeeda dowladda Kenya ay iskeeda u gudbisato iyadoo Soomaaliya dhibaysan u arag Soomaaliya ay u gudbisato iyadoo aysan muxuu ahaay Kenya aysan dib u arkeen wixii markaas khilaaf oo markaa yimaado ama murana oo muranka ka jira ama xuduudana ay si mataqaanaa haddii maxkamad isla aadayaan iyo haddii iyagu xallisanayaan oo xal ay ka gaarayaan hadda sidii loo aado yani oo xeerku dhigayo iyo shuruucda caalamiga ay dhigayso ee badaha in taa la raaco marka is-afgaradku wuxuu qayb ka ahaa commissionka ama nimanka la yidhahdo CLCS nimanka la yidhahdo oo commissionka qalfoof qaaradeedka limitkiisa sameeya oo caalamiga ah oo qaabilsan muxuu ahay xadaynta 150 iyo nautical mile ka qaabilsan ayaa loo gudbinayay marka iyaga ayaa dowladaha jaarka ah ama dowladaha dariska ah yani ku yiraahdo ku soo heshiiya inaan inta la soo gudbinayo wax dhib aysan u arag si iyagu hadhow aysan duruuftaas iyo muxuu ahay murankaas uusan u dhexgelin oo dowladihiina midda kale aysan u durin wixii inta ka dambeeyana ay xal isla aadaan ama maxkamad isla aadaan ama iyaga ay ku heshiiyaan marka is-afgaradku Kenya ayaa si u qaloocinaysa mooyaane qaabka uu qoran yahay iyo sida uu yahay iyada waxay rabtaa inay u leexiso dhinaca iyada ay rabto mooyaane oo maxkamadda ay rabtaa inay kaga fakatee ma aha wax xuduud la kala jeexay xuduud cid la siiyay iyo xuduud inta qaado adiga Kenya Soomaaliya inta qaadato 150 kalmeel midna kuma qorna dadku way arki karaan waxa ku qoran kaliya waxa weeyaan inaan labada dowladood midna mid kale uusan dhibsan uusan dhibaato u arag in la gudbiyo oo ahay qalfoof qaaradeedka cabirkaas 150 kalmeel intaas kulay marka waxaan isleeyahay aniga ra'yigayga waxaan isleeyahay lagama maarmayn in la saxo barnaamijkaas sababtoo ah waxaan looga maarmayn in waqtigii naga dhacay 2009 May Abriilna la saxay haddii aanu heshiiskaas ama marinka la xuduudda la gudbin lahayn oo labada dowladood ay saa isu haysan lahaayeen lama gudbin kareen markaasna halka waxaan ku waayi lahayn dhibaato kale iyo duruuf kale iyo xaalad kale aan geli lahayn oo arrinta ku saabsan marka waa lagu khasbanaa in la galo laakiin Kenya ayaa waxay u fasiratay oo u xumaysay qaabka ay u fasiratay oo iyadu ay danaheeda ka arkaysay bay yani u adeegsatay mooyaane wax ku qoran hadda qofka hadduu akhriyo inta uu nuxurku ka helayo memorandumku waa intaas waad mahadsan tahay mudane kadib shirkaasi isfahamkaasi MOU baarlamaanka ayaa ka fadhiistay oo markaasi buuq ayaana markaasi soo kala dhaxgalay waxayna soo saareen qaraar ay ugu magac dareen dhaxal dhowr maxaa loola jeeday
والله baarlamaanku horta wuu dadaalayaayo wuuna dadaalayay xilligaas oo mas'uuliyad ayuu dareemayay oo lama dhihi karo de baarlamaanku waa degdegay ama duruuf kala qabsatay dad wadaniyiina oo badanna waa ku jireen oo yani badda iyo berigaba ka dhiidhiyaya haddii duruuf timaado ama xaalad ay timaado marka anigu waxay la tahay dadaal un bay ka ahayd oo baarlamaanku xus lahaa Soomaaliya iyo tan badeeda dhibaato la kulmin ka difaac dadaalkoodana ma xumeyn waxa weeyaan waxna waa tartay oo dadkii Soomaaliya ayay u dhiirigelisay inay badooda iyo kheyraadka ku jira iyo xaaladda iyo Kenya damaca ay leedahay oo maanta aysan heshiiskii la galay memorandumkii la galay ay dhinaca kale cagsiga u adeegsatay si loogu heshiimo wanaas qaab kale u adeegsatay ayay ku baarlamaanku baraarujin buu sameeyay oo baraarujintaasi wax weyn bay Soomaaliya tartay in cilmigii la baaro dadkii muxuu aqoonyahanada ahaa ay cilmi baaris ku sameeyaan la ogaado xataa baarista shidaal iyo kheyraadka ay Kenya ay ka wado oo ahayay meeshaas badeena ah inaga aynu leenahay kheyraadka wado inay dadka iskood ay isu xilqaamaan oo ay baaris ku sameeyaan ilaa markii hadda dacwadii aanu geynay Soomaaliya ay geysay maxkamadda ay dadkii oo indhaha kala haya xogtii oo aad loo hayo inta company ay gelisay Kenya iyadoo la hayo yani dad badan baa iskood isu xilqaamay oo macluumaadkaas la helay haddii aysan baarlamaanku go'aanka gaarleen macluumaadka lama helay marka waxaan isleeyahay baarlamaanka go'aankiisana ma xumay heshiiskii la galayna duruuf baa khasabtay oo waqtigan waa naga dhacayay cabirka inaan gudbinana kontenta shalfigana muhiim buu ahaa labada dhinacba isma diidayaan waa la iswaafajin karaa oo hadda baarlamaanka go'aankiisa lama dhihi karo waa go'aan waxba ka jirin lama dhihi karo go'aan miro dhala oo waxtar leh buu noqday oo dadka baraarujiyay laakiin waxaan isleeyahay dadku sida ay yani badii xuduudeedii Kenya la siiyay ama qayb kamid ah la siiyay sida loo dhigayo ma aha oo waxay u baahan tahay qofkii arka go'aanka maxkamadda ay gaartay inay maxkamaddu ay geli karto kiiskan ilan Kenya markii dacwadda la furay oo Soomaaliya aanu geysanay dacwadeena ka dhanka ah Kenya iyo ku xadgudubkeeda badeena Kenya isdifaaci ay sameeysay waxaa kamid ahaa inaysan maxkamaddu xaq u lahayn hawshan inay gasho oo kiiskan aan hadda ka hor annaga aanu heshiis ka galnay banaankan aan ku xalisan annagii Soomaaliya doodeedu saas ah marka maxkamaddu waxay tiri memorandumkii bay gashay waa la fiiriyay muxuu ahay looyaradii waxaan leeyahay garsoorayaashii waa eegeen go'aan baa laga soo saaray 2017 bishii labaad labadeedii go'aan miro dhal ah oo rajadii Soomaaliya kor u qaaday inay kiiskan ku guuleysanayso Kenyana ay ogaatay inay ku jabayso ayaa halka ka soo baxay oo ahayd in maxkamaddu kiiskan ay gali karto memorandum of understanding kana aysan wax xuduud oo la kala qaatay ama heshiis xuduud ku saabsan oo Kenyana ay intaas ay leedahay la yiri Soomaaliya intaas ay leedahay la yiri ama Kenya looga tanaasulay muxuu ahaayay 100,000 square ka ah midna aysan ku qornayn kaliya uu ahaa war inta kontenta shalfiga aan gudbisanayay inta aad gudbisanayso wax dhibayaan loo arkin mid walbana iskiisa u gudbisto iyadoo dhibaato loo ark kaliya ay ku qornayd ayuu fasiray maxkamaddu ay fasirtay halkaas marka waxa laga arki karaa in heshiiska ama is-afgaradka ee Soomaaliya 2009 saxiixday uu ahaa mid markaas waxtar leh oo sida loo sheegay maxaad ka filaysaa marka haatan go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee adduunka marka magaceeda la soo gaabiyo ICJ yiraahdo markaasi soo bixi doona 12 bishan aynu ku jirno
والله rajo fiican ayaan qabnaa rajadaan qabnana dadka Soomaaliyeed way dareemi karaan oo horta cidda dacwadda gudbisay waa annaga 2014 bishii August 28keedii dacwadda innaga ICJ ka diiwaan gelinay oo Kenya dacweynay Kenya diyaar uma aysan ahayn inay maxkamad tagto annaga dacweynay oo maxkamadda geynay inaan Kenya geyno annaga yani dalbanay annagu markaa ku doodeyna inay loo taqaanaa nagu soo xadgudubtay oo badeeni khayraadkiisa nool iyo khayraadkiisa manoolaha inta bay ku soo xadgudubtay oo shirkada ay gelisay kalluun laga gurtay ila meeshan waxa ay Kenya ugu dhagan tahay waa meel batrool eegaago oo nimca ay ku jirto shirkadaha ay gelisay ilaa 5 shirkadood ay gelisay oo baaris ka waday ilaa 2000 oo shantii wixii ka dambeeyay laakiin 2009 wixii ka dambeeyay si xooggan baa loo waday baarista annagoo taa ka dacwoonayna in baddaas annaga aan leenahay sharciga badaha adduunka uu na siinay xariiqda toosan Kenya iyo annaga waxaan wadaagnaa xuduud berri aan wadaagnaa xuduudaas berriga waxaa sameeyay oo kala xadeystay guumeystihii labada dalba guumeysanay oo annagana dhankayga Talyaani ayaa guumeysanay iyagana waxa guumeysanay Ingiriis 1924 ayay kala xadeystay labada wasiir arrimaha dibadeed ayaa waxay ku kala saxiixdeen Roma iyo muxuu ahaay London heshiis is-afgarad ah oo ay kala saxiixdeen in xadkaas la sameeyo guddi farsamana ay sameeyaan guddigaasna uu shaqo bilaabo baarlamaanadoodan ay ogolaadeen ilaa 1933 sideedaas sano waxaa laga shaqeynayay xuduudaas berriga iyo badda ay ka shaqeynayeen waana xuduud hadda la yaqaan oo 29 rukun berriga muxuu ahaayay marta baa horta badda gashay horta macluumaad in la ogaado u baahan waaye waana kiiska iyaga doodiisa waxaa asal u ah muxuu ahaayay heshiiskaas ay labada guumeysi ay galeen ay ku xadeysteen xadka berriga iyo badda waa haddana la yaqaan oo muxuu ahaayay caalamigana ah kaas ayaa marka astaas u ah anaga waxay doodeen way yaqaaniin dadka reegado BB1 iyo BB2 iyo ilaa BB29 buu ka galaa tuulada la yiraahdo Dar es Salaam ayuu ka galaa yani waxay border pillar 29 ayuu ka galaa xadka waxay xeebta ka galaa tan tuuladaas ka tagta ee xeebta ah toos ayay waxay u tagaysaa meesha la yiraahdo toos ayaa loo qaadaya ilaa contractor shalfiga ama 350 nautical mile toos aa loo qaadaya marka anaga asaaskiina horta xariiqda toosan ee heerka adduunka uu gal yahay yani inagu nafeenaya sababta xeebta laga tagayna waa meel Soomaaliyeed oo laga cabirayo waxaan la raacayaa waa khadkii Ingiriiska iyo Talyaaniga ay kala gudbeen ee 29 kun ay sawiradoodii maabinkoodii wuxoodii Allah uu xariisto engineer Salih ayaa aad u maabgareeyay oo develop sameeyay maadaama xilli hore ahaayeen isagaana mataqaana hawshaas qaabilsana sawirada ilaa 150 page ayuu ka sameeyay oo maabkaas oo doodda ugu adag waxa weeyaan aan meesha la sababtoo ah heshiis xuduudeed oo kale anaga Kenya yeelanay ma jirto ama bari ha noqdo ama bad ha noqdo kaas uma kala wareegnay labadii dawladeed ee gumaystaha iyaguna 63 kala wareegay anaguna 60 kala wareegnay oo hayay
talyaani taas waa qodob horta muhiima oo ina siinaysa meeshan xuduudii hore la raacay qodobka labaad ina siinaya waxaa weeye Kenya dowladdu waxay ahayd aan burbur gelin anaga burbur maanta markii heshiiska caalamiga ee badaha 1994 la dhaqan geliyay oo dhaqan galka uu maray labada dowladdu way saxeexnay laakiin anaga waxaan ugu dhacay 1989 ayaa baarlamaankeenu ansixiyay madaxweynuhu uu dib soo saaray maxamed siyaad barre Allah u naxariistay waa la gudbiyay laakiin dhaqan galkiisii 1994 waxyaalihii dhaqan galka ka waajibiyay maanu samayn sababtoo ah dowlad jirta maana waan buu iyagu marka way gudbiyeen 94 xuduudoodii iyo maabkoodii meeshana kuma darsan balbiir halka meeshan kuma darsan su'aasha marka la weydiinayo in la weydiiyo maxkamadda ay weydiiso waxa kamid way halkan ugu darsan weeyeen labadii kumay mar dambe isbedel ku sameeyeen waxaa la ogol yahay qoyaha qaramada midoobay waxaad codsi weydiinaysaa inaad develop ku sameynaysid ama horumarin ku sameynaysid xuduud badeedka aad ka xusanaysid in lagu soo celiyo kadibna aad ku sameyn kartid aad dib u soo celin kartid labadii kun bay codsadeen kii labadii kun ee dowlad yani oo ahay dowladdii cartaa markaas waa dhashay laakiin ma ahayn dowlad oo dhamaystiran ma ahayn oo real u jirta ma ahayn way codsadeen haddana way celiyeen waxba kama bedel damacan marka wuxuu galay 2005 ayuu galay oo ah meeshan markii la ogaaday baaris lagu sameeyay kalluunka ku jira oo tuunaha oo meesha saxada dindu ugu badan ay tahay khayraadkan noolaha ay ku jira markii la ogaaday damacaas iyo baaristaas ay kambaniyasha ay ku sameeyeen oo satellite ah damaca markaas ku galay marka kadibna baaristii bilaabeen marka xujooyinka hor yaal waxa weeyaan inaysan labadii marna ku darsan xilligii talyaaniga ingiriiskana xuduudoodii isan dhinacan meesha hadda lagu marsan yahay Italy bay raacsaneed ee ma ahayn British ma ahayn waxaa kaloo muhiim ah xeebta markii xariiqda toosan ay diidan yihiin xariiqda toosan in baseline laga soo qaado iyagu ma ogola waxay leeyihiin xariiqda hal la qalooyo oo hal la dabto ayay leeyihiin si ay markaas dhulkooda ay xariiqda u laakiin xariiqda sidii sharciga una siinay anaga haddii la toosiyo waxaa la tegayaa dhul Soomaaliyeed baa la tegay marka waxaa la dhahaaba qaacido waxaa jirtaba intaadan baddu asaas waxa u ah dhulka lama bad waa in dhul laga soo bilaabo marka intaan bad la iman waa in dhul laga soo tagaa waa in dekad laga yimaadaa waa in meel uun laga soo fuulaa oo dee bad ka soconaysa ma jirto aan beri lahayn marka xariiqdii toosneed ee sharcigu la siinayay toos oo equal distance ahayd ka imanaysa baseline-ka oo ka imanaysay meesha xad ka galo labada dal ee beriga xariiqdaasna toos baa loo qaadayaa yani waxa weeyaan taasna way nasiinaysaa dhulkina waa dhul Soomaaliyeed xariiqda laga qaadayay taasna way cadaynaysaa sidii dhammaa ay labada dowladood galeenna dacwadiina waa ku hadlay oo waa la diray oo waxaa laga soo qaaday diga London iyo Roma ayaa laga keenay iyagoo sawiran waxoodii ah sideedaas sano ay ka shaqeynayeen meesha lagu shaqeynayay xarunta u ahayd Ismaaciil wayna ku qoran oo Jubbaland ayaa labada guddi ee Talyaaniga iyo Ingiriiska xadkii ay ku sameynayeen ee marna may u hoyanayeen ka soo noqonayeen shaqada ay wadayeen oo rukunadaas aan baabiin hadda yaala oo balaxa wax rukunka labaad uu maray Dar es Salaam ee xuduudan ugu sheegay cirifka oo xeebta ay ka gashana rukunka labaatanaad ku yaalo ay ku qoran dadka reegadan ay yaqaan dadka Soomaalida ay yaqaan atlaskana muxuu ahaayay juqraafi ahaanna meel walba ay ku qoran tahay oo maapka la yaqaan kaas un baa cabirkan raacday waa kaas anagu nafsiinaya meesha marka waa sababta ay ugu doodeen ay u yiraahdeen maxkamadda dacwadda laga soo celiyo oo anaga iyo Soomaaliya heshiis baan u galnay waa sababta marka maxkamadda ay proposalka ula tageen ah Soomaaliya
annaga heshiis baan la galnay heshiiska memorandumkaan galnay annaga banaan ku dhamaysanayn hawsheeda is-afgarad baa jiray maxkamaddu sida awgeed uma laha inay hawshan gasho waa inay laga soo celiyaa annagan aan ku doodaynay maxkamadda ayaanu geysanay dacwaddan iyadaanu ku kalsoonahay wixii aan ka helno annagoo og xujooyinkeena aan leenahay iyadu waxay sababtay maxkamadda uga cararaysa waxay ahayd inaysan xujooyin cadcad aysan haysan oo ay ku doodo ha noqoto xeer caalami international law oo anculoska ha noqdo 3 ha noqdo muxuu ahaayey heshiis oo aan galnay sida hadda ay leedahay memorandumka ee go'aanka waxaa gaartay maxkamadda oo tiri bishii 2017 bishii labaad bay waxay tiri is-afgaradku wax uu idin siinaya ma jiro ama bad ah ama ka dhalanaya in mataqaanaa kiiskan ay maxkamadda laga celiyo ama labada dawladood ee heshiis iyagoo ay ka dhigtaan kama dhalanayso dawladda Soomaaliya xaq bay u leedahay in maxkamaddu waxay go'aan ku gaartay inay kiiskan ay awood u leedahay inay sii wado waa sababtaas ay marka Kenya ay ugu jabtay waana sababtay u rabtay inay ka soo celiso kiiska badda dacwada in laga soo celiyo oo iyaga iyo dawladda Soomaaliya ay wada fariistaan markaas ay negotiation la bilaabo negotiationka uu dheeraado marka negotiation la galana dee waxaa ka iman karta divide by 2 iyo hadba adigu intaa qaado sida iyagii Tanzania bay u heshiiyeen ay qolana jasiirad la siiyay qolana xagga la siiyay kala qaatay ay xadka saa u samaysteen in anagana aanu sidaas aan u samaysano ay rabeen oo kadibna khayraadka ku jira meesha ay wax ka helaan laakiin fillahi alxamdu waxaa dawladda Soomaaliya ku adkaysatay inay dacwadii la sii wado kiiskana la geeyo loo dhabar adeego waa sababtay hadda dhageysiga ugu dambeeyay ama garmaqalkii ugu dambeeyay ay uga maqnayd oo xujooyinkii iyo waxba aysan u hayn maadaama memorandum of understanding laga gudbay oo la yiri kaas wax ka soo qaad ma leh dacwadana maxkamadda sii wadi karta la imo maxay marka Kenya gudbisay ilaan Soomaaliya waxaan gudbinay waa intaas xirkeed haddaan soo koobo Kenya waxay gudbisay oo isdifaaceeda kamid ahaa kow horta Kenya markii dacwadda loo sheegay iyo la wargeliyay la yiri Soomaaliya dacwad in ka soo gudbisay waa maalintaas waa inaad timaadaan Soomaaliya way tagtay wasiirka arrimaha dibadda markaas hogaaminayay guddigeena ergadeena tagtay oo Dr. Bailey hadda wasiirka maaliyadda ah markii meesha la tagay iyagana wasiirkooda arrimaha dibadda yimi hal yiri waqtiga la isla ogolaado waqtiga Soomaaliya ay dacwadeeda ku soo gudbin karto ama reportkeeda ama memorialkeeda ay ku soo gudbin karto Soomaaliya sheeg baan Soomaaliya waxay qabsatay 9 bilood inay wax walba cadeyma oo kiiskeeda qoseeyo ay ku soo gudbiso Kenya waxa la yiri adigana sheeg 2 sano qabsatay 2 sano suurtagal ma aha la yiri oo Soomaaliya waa diiday waxa la yiri 2 sano way badan tahay inay isdifaaceeda ku soo gudbiso kadib markii dambe maxkamadda dhex gashay maxkamadda waxay tiri 9 biloodna Soomaaliya ha qaadato 12 biloodna Kenya isku difaacdo oo difaaceeda ku soo gudbiso marka Soomaaliya markaas waa bishii September baa la tagay 30keedii baan filaya ama October baa la tagay 14keedii baa ergadu tagtay 2014 9 bilood baa laga tiriyay I think in la tagay July 2015 July 15keedii ayaa anagu kiiskeeni oo dhameystiran oo taariikhiisi historigii mappingkii muxuu ahaayay xagga xeerarka caalamiga sharcigeena badaha wax walba iyo ku dhameystiran xujooyinkeena dhammaan inagoo xujooyin ku dhameystiran yihiin waxaan gudbinay 2015 bishii July ayaa meesha iyagu ay ka gudbiyeen 2016 bishii May ina 12 bilood ayaa u dhaxaynaysa marka Soomaaliya marka iyagu dacwadooda maxay xujadooda maxay xujo ka dhigtay iyagu xujo ka dhigteen inaan heshiis memorandum of understanding ee Soomaaliya iyaga wada galeen 2009kii sida awgeed aan maxkamad aysan kiiskan qaadi karin ayay kow ka dhigteen doodooda kale waxay iska noqdeen emailo ee dad siyaasiyiin Soomaaliyeed ay wadaageen qaxooti Soomaaliyeed ayaan dhadhaab ku haynaa oo 5 milyan gaaraya
Soomaaliya maadaama ay burburtay waxaan hoosti gareynay ama martigelinay qaxooti badan waxaanu qayb ka nahay la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta muxuu ahay Soomaaliya amnigeeda iyo say cageeda isugu istaagi lahayd intaasoo shir ayaanu qabanay oo dib u heshiisiina ayaan Soomaaliya u qabanay waxaan diyaar u nahay mar walba dowladda Soomaaliya inaan garab istaagno adigu wax ay ku sheeganayso abaal inay Soomaaliya gashatay badana memorandumkaas loogu saxay maxkamaddu inaysan mataqaanaa nuxurkeeda ugu weyn oo ugu culus wuxuu ahaa in aysan maxkamaddu aysan kiiska gali karin iyadoo markaas waxyaalo badan adeegsanaysa iska soo buuxisay dacwadeeda iyo isdifaaceeda laakiin ay maxkamaddu ilaa alxamdulillah 2017 bishii labaad qof kasta waa heli karaa beejka maxkamaddu ku jira 2017 bishii labaad labadeedii adigu 6 bari ka hor doorashadii 8 February ayaa go'aankaas soo baxay inay maxkamaddu kiiska qaadi karto anaga maalintaas ayaa aanu guul gaarnay Kenya ay ku jabtay qodobkii koowaad ee nuxurka u ahaa halkaas ku jabtay wixii kale marka waa tay baaqanaysay oo duruuf imanaysay oo marba iyadu ay goynaysay oo laastigii ay wax xujo ah ay keen weeday ilaa ay maqnaatay ilaa hadda markii ugu dambeysay 2 bari ka hor ay tiri maxkamadaba iyo go'aankeeda ma aqoonsanin waxaasan kiis iska walbo ahaa sababtoo halka kiis baa u noolaa iyaga oo ah in maxkamadda laga soo celiyay tiina 2018 waa go'aanka laga gaaray marka falaal alxamdu qareenadii Soomaaliya ee ajnabiga ah muxuu ahaay teamkii ergada Soomaaliya oo Muna Jarnaal Maxamed Sharmaan oo iyadana ergada hogaaminaysay sababta wasiir Bayle markii uu baxay 2014 2015 waxaa la magacaabay ninkii la oran jiray hadliye muusan tagi jirin wuxuu wakiishay ergada ku-xigeenka ergada waxaa loo magacaabay ama wakiilka ergada waxaa loo magacaabay Muna marka wixii xiriira iyo ka jawaabida garsoorayaasha su'aalahooda iyada ka jawaabaysay iyada iyo ninka la dhihi jiray Allah naxariistay injineer Saalix ayaa qayb muhiim ka qaatay dadaal badan ku bixiyay iyagoo aan dhaqaale badan iyo dhaqaalaba ku helin waxaan dhihi karaa shaqooyinka ay haysteen oo ay dunida ka haysteen ama ay ka heli kareen yani dhaqaale yani lama siinayno meesha oo Muna hadda mishaarna kama qaadanayo Soomaaliya injineer Saalixna waxa kama qaadanayo si mustaqbalka markaas ugu caawinaysa ها يعني سي هو تبرع أيوة عاونيس مركي نتيجة جارتي قبل منى شرمان وكيس كلا دميستري اللي الموقت وحين أنت قدام بيا قرينا ذا هوش فلين كرو دفاعي هوش يوضي كر وحشقة بدن لغمان بهنا ساسي مركي شقة كله شقة دي يكون رأستيو ينولش هذا يكون رأست مركي جزتي واجب كذا إنجيل صالح إن بالكهر أيوة فوقيريو ذي الله ونحرسته لكن مرة بحب يجري إنه go'aankaas inaan goobjoog ka ahaado ayaan jeclaan lahaa marka labada qof waa laba qof aan aad u wada shaqeynayno oo wada shaqeyn aan lahayn anaga hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliya maadaama aan ahayn hay'adaha badaha oo dhan ee shaqooyin ba ka dhaxeeyay kiiskaasi waxaas markii la ururinayay kamid ahaa oo muxuu ahay haddii noqoto xogaha historicalka iyo hatta deegaankii waa lala hadlayo laga soo qaaday aathar iyo wixii mataqaan xujooyin iyo sawirra iyo wixii la heli kara iyo dadkii dad marka waxaas oo marka aad baa marka kiiskaas loogu dadaalay saasaana marka uu ku gudbay natiijadiisana insha Allah bisha 12keeda ayaan sugaynaa inagoo rajooyinkaas iyo xujooyinkaas cadcad qabna Kenyana ay iska fadhi ku dir ay hawshooda tahay aysan wax badan xujo cada aysan meesha ku hayn aad baad runtii u mahadsan tahay waqtiga qaaliga mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan kaaga mahad celiyo waqtigaaga qaaliga ee aad runtii caawa aad noo hurtay waxaan ogsoonahay Kenya inay kalsooni badan ku qabtay kiiskan dadaal badanna ay gelisay in laga soo celiyo ICJ maxaa laga filan karaa haddii Soomaaliya loo xukumo Kenya waxay soo saartay 2 maalin ka hor intaan lagu dhawaaqin go'aanka maxkamadda ayaa waxay gaanshaanka u daruurtay
in go'aankaas uusan iyada khuseyn aysan aqoonsanayn welina ay ku taagan tahay in maxkamaddu aysan awood u lahayn inay kiiskaas gasho iyadoo cuskanaysa heshiiskii 2009 oo MOU go'aankaas hadduu saa usoo baxana oo Soomaaliya loo xukmiyana aysan aqoonsanayn go'aankaas horta way soo saartay iyadoo aan ka hor dhacdayba haddii Soomaaliya loo xukumo iyo haddii kaleba wayba ka hor dhacdayba waxay xogaal u tahay xujooyinkeeda iyo waxay waday iyo kiiskawaalkeeda ayay og tahay iyo inaysan xujooyin rasmiya oo ay la galo tagta aysan haysan sida awgeed ayay u maran habaabinaysaa shacabkeeda ee u leedahay anoo kiiskaas yani maxkamadaas ma aqoonsanayno go'aankeeda anyway marka annaga maxaa nala gud annaga go'aankaasi sidaan rajeynayno sida aan rajeynayno haddiina loo xukumo muhiimadda ugu weyn waa in dhanka sharciga ay awoodda ka hesho oo maxkamaddii adduunka ee caalamiga ahaayee kiiskan gashay ee muddada 7 sano ay waday go'aankay soo saartay go'aan miro dhal ayuu noqonayaa sababtoo ah Kenya ma diidi karto maxkamadda qayb ka tahay oo xeerka maxkamadda ay ku heshiiska maxkamadda lagu dhisay ayaa labadayadaba Soomaaliyana ay saxiixday Soomaaliyana Kenya ay maxkamadda iyada inay kiiska qaado ay riddo ayaa iyadoo halkaas ay kaga haraysaa wuxuu gudbinaysaa maadaama maxkamad caalami tahay oo United Nationska ay hoos tagto UN-ka ama maxay General Secretary-ga loo gudbinaya ama xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa kiiska lagu wareejinaya sidoo dalalka qaybtooda ku sameeyay Nigeria iyo Cameroon Nigeria way ka hortimi go'aankii markii loo riday dhanka Cameroon kadibna isaga labada madaxweyne isugu yeeray xogayaha guud ee qaramada midoobay waa la wada hadalsiiyay ilaa laga gaaray in Cameroon lagu wareejiyo meeshii lagu muransanaa ee muranka ay maxkamaddii u xukuntay muxuu ahaayey Cameroon ana marka waxaan isleeyahay kiiskan haddii la xukumiyo muhiimadda ugu weyn waa xukunkaas sharciga inuu dhaco awooddeena yani awooddan waxaan siin karaa waa dhanka sharciga maadaama tan sharcigan kusoo guuleysanay waxa kalena iska process bay geli doonaan UN-ka la wareegi doona muxuu ahaayey waxaa la wareegi doona 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa yani hawshaas geli doona markaas wada la yaqaan buu bahasha maraya fi nihaaya way iska dhamaan doontaa Kenya hadda waxaan isleeyahay inay way ku khasban tahay inay fulisay shacabkeeda isleedahay amay ku kacaano maadaama nimanka bad yarna waa leeyihiin xogaa duruuftaas maadaama doorashooyin iyo waxaasna ay ku soo foolleeyihiin inay arrintan ku fashilmaan ayay diidan yihiin laakiin fi nihaaya way ku khasban yihiin khasab bay ku tahay inay maxkamadda go'aankeeda ay fuliyaan oo United Nationska ayaa hawshaas la wareegaysa oo fulinaysa waana lagu khasban yahay sababtoo hadda inay iyadu meesha haysato oo sida ay u taagnaato wax ay u siyaadinaysa ma jirto maalgashin kuma samayn karto de Kenya hadda dawlad iyada wax qodan karta ama iyada baaris samayn karta cilmi baaris ma ama shidaal kala bixi karta ma shirkadihii lagu wareejin lahaana mar hore laga saarayo Ahmed Al Daahir baa mar hore waraaqo ka qoray oo waaba laga saarayba maxkamadan waraaq qoraale usoo ka sameysay waana laga ka bixin Kenya marka iyadoo shirkadihii ay gelisay iyo maxay magdhowdoodii baaba loo qabsanayaaba kuwa cusubna ma iman karaanba meel de xukun ka dhacay oo xukunkeedii Soomaaliya loo riday cid hadda khasaaro ama lacag iska bixinaysa oo dhaqaalaheeda gelinaysa ma jirto taas waa mid tan kalena iyadoo de qayb ka ah muxuu ahay xeerka caalamiga ee maxkamadda ay ku dhisan tahay oo ay saxiixday
65 hadda markaan sababay uga laabato maba jirtaba sababta qayb bay ka tahay inay fulisana way ku khasban tahay maxkamadduna dee iyadu xoog ma isticmaashee United Nationka ku wareejinaysa United Nationkana processka gelinaya waxaana lagaga doodi doonaa fulinta go'aanka maxkamadda wax dhiba oo weyn inaan kala kulmayno ma qabo inay fududaanayso ayaan rajaynayaa kaliya waxaa noo muhiima inaan kiiska ku guulaysano maxkamadda ay go'aankana siiso oo dhankeena noo xukunto sidaan ku rajo weynahay laakiin fulintiisa dowlado waaweyn oo dowlado yaryar hadda Kenya anaga wax badan ba hadda nagama weyne kuwa waaweyn oo ka tirsan oo ahaayay 5 fiitooga ah ayaa dowlado yaryar ay murmayeen kadibna markay isku qabsadaan oo dowladaha yar markii loo xukumo haddana la siinayo loo meelmarinayo marka maalmaha hore waraaqahan la soo saaray waa iska dejin in shacabka lagu dejiyo iyo siyaasadooda aan kacdoon ku abuurmin balse in go'aankaas fulayo haska qaato process haska qaato laakiin maxkamaddu waxay ku wareejinaysaa golaha amniga ee qaramada midoobay oo qaramada midoobay ayaa hawshaas dabagalkeeda leh iyo fulinteeda golahaas iska leh iyagaana ku khasban sida muxuu ahay xeerarka caalamiga lagu heshiiyeyba oo maxkamaddan loo sameeyeyba go'aanadaas inay la fuliyo 7 sanana dee laiskama daba jiiteenoo heerka lama soo marin haddaan go'aankaas la fulin karin dowlado badan oo loo sameeyey murankaas uu dhex marayo la fuliyeyna waa jiraan marka hore laakiin ka biyo diiday laakiin markii dambena ogolaaday oo la dhex galay oo UN ku dhex galeen sidaas oo kale inay ku dhammaanayso ayaan anigana aan ku rajo weynahay waa haddiiba aan helno go'aanka insha allah hadduu lahayd ugu dambeyntii cabdiraxiim maxaad u sheegi lahayd dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya dadka Soomaaliyeed horta waxaan u sheegayaa marka koowaad in la ilaashado midnimada badeed iyo dhuleed aqoonyahanka iyo dadka muxuu ahaayey dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan inay ka feejignaadaan inay dalkooda si u maalgashan lahaayeen oo baddooda iyo berigoodaba iyo amnigooda u ilaashan lahaayeen ay ka shaqeeyaan dowladnimadana u hagaagin haddaan dowladnimada la dhinac qaban oo dee la xoojinna badna lama ilaalin karo berrina lama ilaalin karo waxaa kaloo muhiima baddan weyn ee khayraadka ka buuxay ilaahay nagu manaystay hadda maanta Kenya aan ku rajo weynahay inaan kaga guulaysano muranka yarayna gelisay waxay leedahay dee dhinacyo badan oo muran kale haddana laga soo gelin karo Yemen baa ka mid ah oo iyadana 2014 markii la sameeyey maabkeenii la diray oo markii ugu horreysay dowladda Soomaaliya maabkii badda 350 nautical mile oo isku xiran tirta 2014 baa la diray bishii July Yemen oo markaas dowladdeedu ay jirtay way ka soo qaylisay UN-ka waxay soo dirtay warqad ee arrintaas ku biyo diidayso ay leedahay Soomaaliya way igu soo xadgudubtay sababtoo ah waxay iga soo xadgudubtay jasiirada aniga aan leenahay oo Yemen leedahay arrintaas ku dacwoonaysay warqadeedina waa la hayaa Soomaaliyana way soo gaartay laakiin Yemen iyadaa burburtay markiiba kiiskan Kenya aan nagana galnay iyagana waa iska burbureen laakiin kiiskaas Yemen xilligan Yemen iyaduna maxkamad bay tagi lahayd saans leeyahay haddana waynu sugaysaa Yemen haddii soo noolaato soo kacdo waxay noqon doontaa marka hore anaga Kenya qabsanay iyagaana dacweyn doona oo maadaama aan ay leeyihiin waana lagu soo xadgudbayo UN secretary-ga ay u direen cabashadaas
marka halkaas markii waxaa leedahay doodaha iyo dacwadaha marka la diro waa iska badan yihiin xeerka sidoo qabo waxaa loo way sii badan karaan ha Yemen maadaama xuduud badeed iyadana aan leenahay oo weliba dhanka Indian Oceanka dhankan muxuu ahay gacanka iyadoo dhib ma laho maadaama labada wadan iska soo horjeedaan level 2 buu sharciga siinaya xeerku siinaya laakiin meesha muranka ka imanayo oo dooda ka imanayso waa dhanka badweynta Hindiya ayaa dooda ka iman doonta iyaguna de markaas waxay ka sameeyeenba cabashay naga soo gudbiyeen inkastoo aysan maxkamad tegin laakiin cabashay waxay soo gudbiyeen inay maapkaas Soomaaliya uu ku soo xadgudbay bay UN-ka u gudbiyeen markii loo qaybiyay maapkii Soomaaliya 2014 la diray bishii July maxkamadda Kenya intaan la furin dacwadeeda bishii ka horeysay ayaa la gudbiyay markaas iyaguna waxay ka soo sameeyeen oo radi ficilgaas ay sameeyeen oo ka soo jawaabeen yiraahdeen Soomaaliya way nagu soo xadgudbay marka dacwadaas iyadan in loo diyaar garoobo dalka baddiisa iyo kheyraadkiisa la ilaashado badan de macno wuxuu ku fadhidaa markii iyadana laga maalgelin lagu sameeyo laga shaqaysiiyo la ilaashado waxaan lagu ilaashan karaa waxa weeye in dawladda Soomaaliya oo xooggan oo yani ciidan badeed samaysata dhaqaale hesha investment iyo maalgelin ku sameysa badii dawladdaas ayaan u baahannahay shacabka Soomaaliyeedna taas ayaan kula daarmaya in taa laga shaqeeyo oo muxuu ahaayay si dawlad loo heli lahaa yani arrimahan hadda aan ku jirno de qabiilka iyo waxaas badna kuma difaacan karno berrina kuma difaacan karno waxaan qabaa in laga shaqeeyo si dalka uu xaaladan ka duwan uu u tagi lahaa loogana adkaan lahaa cadow kasta ama cadow gudaha ha noqdo ama cadow banaanka ha noqdo badeen ma gudbiyo waxaan kusoo gabagabeeyey shacabka Soomaaliyeed inay u diyaar garoowaan ilaalinta muxuu ahaayay baddooda iyo dhulkoodaba maadaama dunidu maanta ay u wareegtay horumarinta dhanka ka faa'iideysiga xeebaha ama kheyraadka nool ha noqdo ama kheyraadka aan nooleyn ha noqdo doodaha ugu badan iyo muranada ugu badan iyo shirarka dunida ka dhaca maanta waa dhanka badaha iyo ka faa'iideysigooda ayay u badan yihiin marka si aan u gaarno inaan baddan markii dharar ay noqotana dhararkeedu yani 3,000 iyo ziyaado yahay marka ay dhumac noqoto de gudaha la galayana de 600 oo kilomitir wax ka badan uu yahay ilaa 670 uu gaarayo kilomitir oo ballar ah ama dhumuc ah waa bad aad u weyn weeye oo badaha ugu waaweyn muxuu ahay dalalka ku jira marka si looga faa'iideysto waa in dalka yani dawladdiisii iyo la adkeeyo la garab istaago hadba dawladda markaa joogta dawladnimada laga shaqeeyo xeerarkii iyo shuruucdii iyo muxuu ahay nidaamkii dawladnimo la hormariyo in dawladdii markaa timaadana iyadana waxa waajib ku ah in shacabka Soomaaliyeed ay uga faa'iideyso baddo ee dhanka badda loo jiheeyo maadaama xoolihii iska dhamaadeen beerihii iyaduna ay jiraan laakiin xaalad amni ama iska jirto dhankii beeraha oo dhulkii beeraha ugu badnaa ay al-shabaab haystaan dhanka xeebaha bal in looga faa'iideeyo dadkii oo xeebaha loo jiheeyo oo sidii awalba dawladdii dhexe ay sameyn jirtay dadna ay dhanka xoolaha ay u jiheyn jirtay beeraha dadna dhanka xeebaha weliba xeebuhu aad bay u yaraayeen dadka u jiheysay oo aad looma gelin maadaama xilligaas dawladda kacaanka ay jirtay aysan adduunyada de aysan ku baraarugsaneyn oo horumar badan badda aan laga sameyn laakiin wixii 90kii ka dambeeyey badda yani horumar laga sameeyey xeerarkeedii heshiisyadeedii amnigeedii ilaalinteedii aad laysugu taxalluujiyey marka baddeena in la ilaashado amnigeeda nadaafadeeda environmentigeeda muxuu ahaayey
xadgudubka cid walba ku xadgudbaysa inaan ka ilaashano waa wax inaanu dowladda ay mas-uuliyad u saaran tahay shacabkuna inay garab istaagaan looga baahan yahay intaasaan kusoo koobi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay aad buu u mahadsan yahay daawadayaal dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa cabdiraxiin warsame diiriye la taliye sare hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed oo isagu ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya isla markaana inoogu warramayay qadka aad baan runtii uga mahad celinayaa daawadayaal dhegaystayaal gebi ahaantiinba aad baad u mahadsan tihiin daawashadiina wanaagsan iyo waqtigiina qaaliga idinkuna waa anigoo simsamo oo idinkaga tegaya tan intaan dib hawda ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo